Caawa la filayaa in la ciyaaro finalka tartanka Carabao Cup ka lagu ciyaari doono garoonka Wembley ee ku ciyaara xulka qaranka Ingiriiska. Kooxaha ugu sareeya horyaalka ee ku tartamaya xilli ciyaareedkan Arsenal iyo Manchester City ayana wada ciyaari doona finalka tartankan. Taa oo noqonaysa in laba koox kaalmaha koowaad iyo labaad ku jiraan ay ciyaarayaan final tartan sanado badan kadib. Tababaraha Arsenal ayaa ka hadla finalka ciyaari doonaan. Gabriel oo ka mid ah difaacyada Arsenal qudhiisa wuxuu ka yiri kulankan iyo Manchester City dhankeeda kulanka waxay ka tiri muuqaalka ay ku daawan doontaan saaxiibayaal muuqaalka laga inoo saara saaxiibadiina la wadaaga. Tababaraha Arsenal Arteta ayaa qirtay in 6 sano ay kooxda ay sugayso koob weyn ay ahayd wax aad u adag in la aqbalo iyadoo isku diyaarinayaan final Carabao Cup ee la ciyaaraya Manchester City. Arsenal ayaa markii ugu dambeysay koob qaaday 2020 markay ku guuleysteen FA Cup-ka waxaana tani markaas laga joogaa 2059 maalmood iyagoo aan final gaarin. Rabitaanka guusha mar walba uu jiray mana isbedelayo haddii aan hal ama 5 koob ku guuleysto yiri Arteta, laakiin way adag tahay in la aqbalo sababtoo ah waxaan rabaa inaan ku guuleysto tartan kasta oo aan ka qayb qaadanayno. Wuxuu intaa ku daray in waqtiyada adag ay kordhinayaan hamiga. Markaas sanado badan joogto adigoo aan koob qaadin waxay keenaysaa baahi dhiirigelin dheeraad ah. taas waa wax haddaan leenahay. inkastoo Arsenal si fiican uga socdaan BL isla markaana ay ku jiraan wareegyada dambe ee tartamada kale, Arteta ayaa diiday kooxdiisa loo arko kuwa ugu cadcad. Ma jiraan koox si cad uga cadcad finalka, waana ciyaarta ku muujisaa si aad u kasbato midaasi. Arteta ayaa sidoo kale leh rikoor wanaagsan oo Wembley Stadium isagoo ku guuleystay dhammaan 8 kulan halka uu ku ciyaaray ciyaaryahan ahaan iyo tababar ahaan. Waxa uu rajeynayay inuu sii wado markii la kulmaan Manchester City. Arsenal hogaamiyada Arteta ay noqon doona 33 sano kadib maalinkii ugu horeeyay League Cup u qaada kooxda markii la ciyaaro Manchester City 1992 iyo ugu dambeysay Gunners Cup-kan ku guuleystay xilligan ay ka qaadeen kooxda Juve. Daafaca kooxda ninka lagu magacaabo Gabriel Magalhaes ayaa qudhiisa ka hadlay finalkan. Magalhaes ayaa sheegay in Arsenal si weyn ugu faraxsan yihiin in la ciyaaraan City finalka tartanka. waxaan u maleynayaa inay dareen aad u fiican tahay in kooxdu finalka gaarto iyadoo la ciyaarayso kooxa sare. Daafaca Brazilianka ayaa halkaa ka dhawaajiyay koox kulanka caawa. waxaan qabnaa dareen wanaagsan mana sugi karo kulanka ayuu yiri. Gabriel ayaa sidoo kale ku tilmaamay sidii muhiim ugu tahay Arsenal guushan. Saan hore u nidaaminay waxaan ku jirnaa tartamada oo dhan. Laba ahaantii waxaan doonaynaa inaan ku guuleysano ciyaar walba. waxaan ognahay in noqon doonto dagaal adag, laakiin waxaan diyaar u nahay inaan isku dayno inaan guuleysano. finalkan ayaa Arsenal siinaya fursad ay ku xoojinayaan koobkii ugu weynaa 6 sano kadib tani markii ay qaaday FA Cup-ka 2020. Gabriel oo ka mid ah ciyaartooyda ugu waqtiga dheeraa ee kooxda iyo weli aan u dabaaldegin guul weyn oo horyaal ah. halka Manchester City macalinkeeda Pep uu sheegay in Arsenal ay faa'iido haysato koob finalkan. Guardiola iyo aaminsan sugitaanka dheer ee Arsenal ay ku jirto koob la'aanta ay ka dhigan tahay koox aad baahi ugu qabto koob inay qaado. Arsenal waxay xakameynayaan waxyaabo badan oo ciyaarta muddo dheer aan lagu guuleysan, waxay abuurtaa rabitaan xooggan. sidoo kale waxaa jira isku duubni iyo taageero dhinacyo kale ayuu yiri. wuxuu amaanay sida u ciyaaraan, waxay go'aan ka gaaraan goorta ay difaac galayaan, goorta ay dib u noqonayaan, sida kubadda loo dhiso, goorta ay kubadda dhaadheer ciyaarayaan, sida ula tacaalayaan kubadda rogalaliska. wax badan ay si fiican u sameeyaan. Pep ayaa sidoo kale sheegay in Arsenal ay si heer sare u ciyaarto UEFA Champions League taa ka dhigaysa koox adag. wuxuu tilmaamay in finalku yahay fursad weyn oo kooxdiisa ah. waxaan ku ciyaarnay Wembley Stadium 22 jeer 10 sano la soo dhaafay. waa sharaf iyo caqabad weyn markaad gaarto final. mar walba way adag tahay cid kasta la ciyaarayso. labada kooxood ee hore isu arkay Premier League xil ciyaareedkan kulanka ku dhamaaday gool iyadoo Haaland goolka hore dhaliyay halka Gabriel Martinelli uu barbaraha keenay daqiiqadii ugu dambeeyay kulanka. maad ku soo daalinaysaa finalka Carabao Cup.